siyaasiga Salaan Cali Jeelle ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay damac Xasan Sheekh iyo Cumar Cabdirashiid ee doorashada la xiriira. Salaan Cali Jeelle oo ka hadlayay magaalada Muqdisho munaasabad ka dhacday waxa uu sheegay in muddadii dowladda federaalka ay jirtay aanay waxba qabanin. wuxuu intaasi ku daray in macluul iyo gaajo ay horseedeen iyo dhiigbax intaba. asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay baylaha ka dhigtay dadka ciidamadeeda soo dhaweeya amaba la shaqeeya. hadda waxaa noo muuqata marka inay rabaan qoladan xukunka hadda noo haysay 4 sano la soo dhaafay oo madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxda ka yahay iyo asxaabtiisa waa musharaxiin saadka warqabtiin Cumar Cabdirashiid waa musharax Xasan Sheekh Maxamuudna waa musharax qofkuna hadduu musharax yahay waxa uu raadinaa waxa uu iska ilaalinayaa cid la tartamaysa ayuu diidaa waxa uu rabiyaa meel cad inuu ka helo kursiga haatay haday wax qabteen 4 sano la soo dhaafay waxaan dhihi lahayn waaba iska dhaafi lahayn oo iyaga loo kambeyn garay lahaayo hana gaarsiiyaan haddana aan dhihi lahayn laakiin nasiib darrada dhacda waxay tahay dalka Soomaaliya waxay ku soo kordhiyeen baahi iyo mataqaanaa maxluul iyo genocide waxay gaaladu u taqaanaa dhiigbaxa marka dadka Soomaaliyeed isku celcelis inta qaaja u dhimaysa iyo inta shabaab dilaayo iyo inta ay mataqaanaa dishibiliin xumo ay ciidamadu u dilayaan maalintii 100 qofood waay 100 qofood oo subax walba dhimaysa waxa intaas dheer haddana in dadkii deegaanadii ay dawladda gaarto inay inta ka soo cararaan ay haddana dib shabaabkii inta ugu soo noqdo ay markaas mataqaanaa dadkii la ciqaabayo la leeyahay iyaan dhaweeday markii ay dawladdu halkaan timiday waadiga hebel biyasiya askariga noocaasa waadiga sii waa dhibaato hor leh waa arrin dadka Soomaaliyeed si indirectia inay dalkan intii u noqdo loo rabo Soomaalidu waxay tiraahdaa haf kuudkay ka roonta ee maalin walba iska jiranaad ee mariilkii meelow saaray hal ugu yira inaad hal mar dhimataa ka roon dadku say u dareemayaan dadkan waxay rabaan marka mariilay naga dhigayaan loo noolaa ma hadan la iska qaba. Salaan Cali Jeelle asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in lacag fara badan oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay xadeen intii kursiga ay ku fadhiyeen ay doonayaan inay ku indhasarcaadiyaan odayaashaasi u soo xulaan buu yiri dad iyaga u daacada. lacagta ayuu sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu aanay bangiyada gey karin ee sariirahooda hoostooda ay ka buuxdo. hadda waxaad ogtiin bishan 17keeda ayay ahayd ballantoodii waxay gaarsiisteen haddana bisha August 4teeda inay isu yimaadaan amba 2deeda taasna waxay ka soo saari rabaan oo dhihi doonaan laba mid ay ka keenayaan sida aan warka ku hayna waxay rabaan inay yiraahdaan 130kii oo 235tii oda dhaqameed ee boqorada ahaayee markii hore mataqaanaa xildhibaanadan soo xulay inay dib u xareeyaan iyagoo markaas ka baqaya kontonkii iyo 1 qofoodoo dadka xildhibaanka u coday laheedo loogu magac diro mataqaanaa indirect election amba doorashada dadban inay ku bedelaan haddana odayaashii oo ay markaasi
fursadii ay dhumiyeen oo aheeday qof iyo codkiisa dana tii labaado dadku ay yaanta ku shaqeynayeen haddana inay meesha ka saaraan ujeedadooduna waxay tahay lacagtii ay aruurinayeen 4 sano ileen dad iyo dal uma shaqeyn oo sariirtoora hoostoora ku jira ileen banka geeyma karaan oo hadda gurigooda hadaad baarto waa dollarku hoose iska dhooban yahay si ay raad isaga ilaaliyeen sariirtooda hoostooday dhigeen waxayna inta soo qufaan marka odayaasha ku indha farcaadiyaan ay mar labaad ma taqaanaa dad aan waayo arag ahayn oo dhalinyaro ah oo aan markaas ma taqaanaa iyaga u ah loyalis amba ma taqaanaa daacad u ah ayay rabaan inay soo xulaan xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya in mar kale uu kursiga ku fariisto iyadoo 4 sano oo uu madax ahaa wax uu qabtay aan la arag laakiin waxaa jira cadaadis kaga imaanaya siyaasiyiin asaga inay la loolamaan doonaya iyo kuwa kale oo doonaya in uu meesha ka baxo si ninka madaxweynaha noqda ay markaasi hadhowta xilal kale uga helaan waxaan la ogeyn waxa lagu yeero beesha caalamka oo xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo dowladda federaal ku jira meesha keenay in ay soo celi doonaan iyo marka xilkooda uu dhamaado in ay raacday doonaan sidii horeyba ugu dhacday madax hore sida Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdullaahi Yuusuf iyadoo la xasuusan yahay in Cabdullaahi iyadoo xilku dhiman yahay in meesha laga ceeriyay